kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha ee qaayaha leh meel kastoo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada janaalka aan ku leenahay barta YouTube-ka ee Kulmis Media. Maanta waxaan rabnaa inaan idin la wadaagno taariikhda alfanaan Qadar Keyo. Intaan bilaabin waxaan ku leenahay kusoo dhawaada gacmo furan janaalka waa janaalkaaga. alfanaan Qadar Keyo magaciisa oo saddexan waa Maxamed Qadar Ibraahim Cumar oo ku magac dheer Qadar Keyo. Qadar Keyo waa nin dhalinyaro ah oo fanaan ah wuxuu ku dhashay kuna barbaaray caasimadda Muqdisho gaar ahaan degmada Yakshiid wuxuuna dugsi hoose iyo dugsi dhexe kaga baxay iskuul ku yaala isla degmada Yakshiid mana sii dhigan dugsiga sare ee halkaas ayuu waxbarashadiisa ku joojiyay wuxuuna xooga saaray fanka oo maanta heerka uu taagan yahay wuxuu ku gaaray dadaalkiisa. aniga kow shakhsiyan waxaan ku dhashay degmada Yakshiid waxaan ku soo barbaaray Yakshiid waxaan wax ku soo bartay Yakshiid dugsi sare ma aanan gaarin balse dugsi dhexe ayaan kaga baxay waxbarashadeedana yani heerkan dadaalna fankana maanta waxaan ku soo gaaray yani dadaalkayga intaas aan soo waday. Qadar Keyo waxaa laga hayaa mar uu yiri waxaan doonayaa inaan noqdo Kriiska Baroonka Soomaaliya. waa ogtahay Soomaalida inta badan nin lacag nacay ma jirto lacag marka la yiraahdo haddaad milyaneer tahay xitaa waa rabtaa weli haddaad magac yeelatidna waa sidoo kale weli yani isma dhigi kartid magaci waa heshay oo meeshaada ku jooji waxaad u baahan tahay mid kasii ballaaran inaad samayso aniga markii isma dhigi kariyo shacabkaa dhigi kara kamana marna inuu yahay laxamiistii mar la weydiiyay heestii ugu laxanka adkeed wuxuu ku jawaabay wallaahi heestii waxay ahayd gabdhaha Soomaaliyeed aan xasuusto ayadaa i wareerisay waana markii ugu horeysay aan sameeyay laxan. alfanaan Qadar Keyo wuxuu qaaday heeso badan taageerihiisana aad ay u jecel yihiin wuxuuna ku kasbaday ammaan badan sida aan wada ognahay fanaan walba heesiisa mid ayuu ka jecel yahay sidaa darteed Qadar wuxuu sheegay heesta uu ugu jecel yahay heesiisa dareen dhab ahna ku reebtay. waxaa jirtay ebel heesta cafis ahayd oo qiso dhab laga sameeyay ayadana kadib hadda markii laga soo gudo waxaan aad u jeclahay runta markaan ka hadla heesta walaalnimo oo ayadana dhabsi ah. daawada qof walba inaga mid ah wuxuu iska jecel yahay meel uu dalxiis tago oo waqti ku soo qaato sidaa darteed Qadar Keyo wuxuu jecel yahay inuu dalxiis tago xeebta Cadalle. dhammaan xeebaha dalkayga ku yaala horta waa wada qurux badan waana jeclahay balse shakhsi ahaan Qadar waxaan jeclahay Cadalle. alfanaan Qadar Keyo mar la weydiiyay kalarada dooqa uu ugu jecel yahay wuxuu sheegay inuu ugu jecel yahay kalarka silfarka iyo kalarada dharka waxaan ugu jeclahay dynamkan aan wata hadda jeemiska oo kale iyo black and white. Qadar Keyo waa single ma uusan guursan wali laakiin mar wax laga weydiiyay Qadar Keyo dooqiisa gabadha uu jeclaan lahaa inuu guursado mustaqbalkiisa waxa uu ku sheegay calaamadaha taas hore waa u sheegay laakiin gabdhaha Soomaaliyeed inkastoo ay wada qurxan yihiin laakiin sidaan filayo waxaan filayaa su'aashaas waxaan jeclahay horta hooyadeeda hadda ii joogta ayeedeeda Faadumo inay yani dabeecad iyo kala haata dhaqan dadnimo yani qof deeqsi oo yani maskiin oo qof walba inuu u damqado jecel naxariis badan kow tan xigta markii la yiraahdo kalarkeedana waa tan hore kugu sheegay mid kalena anaaba dheereen badnada intay deeqaysaa أنا بطول سعيد جاب سعيد نمرة دير نمرة يعني حوجا أنا يجمع ضح في غن لكن أنا دير سعيد أهم صوبته وقف جريئة أنا إنسان حاجات تجري كذا مجعل عيل سعيد أنا حتى سعيد أنا مجعل حكي يا ابني عيل هذين غدودك لما لفوتك لو قلت لك البرادر أنا waxaan jeclahay inaysan cayilnin caatana aysan ahayn. alfanaan Qadar Keyo dooq cuntada iyo cabitaanka uu jecel yahay waxaa ka mid ah marka la joogo baadiyaha iyo magaalkaba. Cunto Soomaaliga asalka ah marka la yiraahdo soor iyo maraq cad oo hilib dhaylaha lagu sameeyay kow markii cuntada laga soo gudbo baadiyo oo la yimaado beledkana muufi iyo hilibkaas ariga brother wax kale hakayaabin cabitaanada waxaan jeclahay isbarmooto liinta bambeelmada dalkeena ka baxda markii laga gudbana caanaha geelka. halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa taariikhda kooban ee Qadar Ibraahim Cumar Qadar Keyo
tan iyo muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.